السلام عليكم كسو دوادا عشر كلو انجليش وحارنا هالكان ان لابا اري او لوغو ريرو اما لسكو دحقسو ardaydeedana ay ku wareeraan aan halkan ku sheego aan ku sharaxo labadaas eray waxay yihiin waa make and do labadooda waa laba eray oo ficil waxayna ka hadlaan hool sameyn ama markii hool la qabanayo ayay sheegaan labadooda haddaba aan aragno faahfaahintooda si kooban ama si guud oo kooban make number 1 markaan soo qaadano make waxay ka hadashaa create markii wax la abuurayo ama hal abuurkeeda lala imaanayo ayaa la isticmaalaa sidoo kale waxaa la isticmaalaa produce markii wax soo saar laga hadlayo ama hool qabatay wixii aad soo saarayso ama shirkad wax soo saarayso markii laga hadlayo wax soo saar waa produce ayadana make la isticmaalaa cause and result markii natiijada sababida natiijadana waa loo isticmaalaa cause and result waa sababida natiijadana make ayaa la isticmaalaa so haddaba inta markaa si guud u sharaxno gadaal ayaa arki doonaa isticmaalkeeda haddana lataas c number 2 oo do iyadana maxaa loo isticmaalaa number 1 do waxaa loo isticmaalaa perform waa markii hool la qabasho hool ama sameynta hool si muuqato loo sameynayo perform ayaa la yiraahdaa carry out iyadana sidoo kale waa sameyn ama waa hool qabasho wax la sameynayo sidoo kalena waxaa weeye do ayaa la isticmaalaa kuwan waxaa loo isticmaalaa do complete an action ficil dhamaystirka ficil ama hool waxaa iyadana loo isticmaalaa do haddaba intaas haddaa sidaas u fahamtay make waxaan idhaahnay markii create hal abuuris marka adiga wax hal abuur aad la imaanaysid oo fikirkii adiga keenaysid stylekii wixii loo sameynayay wax walba everything adiga ay kaasoo bilaabato oo originalkii adiga aad leedahay make a isticmaale produce wax la soo saaray company wax soo saarta ama adiga wax soo saaraysid hawsha aqabatay wixii natiijo ah kasoo dhalata produce aad leedahay sidoo kale cause and result waxaas dhaceen waxaasayna sababeen markii laga hadlayo make aan isticmaala do-na waxaa waaye perform qabasho hool si muuqato loo qabanayo sidoo kale ficil sameyntii ficilkii dhamaystirkiisii intaan waa sameyn leh waa Soomaali markii la isku soo duubo sameyn waay laakiin sameynta ama qabashada hawsha meelaha lagu kala sameynayo ayay ku kala duwan yihiin haddaba aragno contextiga sida loogu isticmaalo labada eray hadda si kooban u sharaxnay number 1 contextiga waa hab isticmaalka meelaha ay ku habboon tahay ereyga in lagu isticmaalo ayaa laga wadaa si jumladan u fiirinayna marka number 1 maadaama make ay balaaran tahay isticmaalkeeda waxaa fiirinaynaa qaababka loo isticmaalo number 1 creating producing something waa number 1 isticmaalka creating al abuurida